waxaan door biday inaan fursad siiyo saaxadda mustaqbalka u bandhiyo siyaasiyiinta iyo saaxiibada sanadaha badan safka igula jiray laba kursi jacaylku waa cudurrada cadowga oo ah hogaamiye kasta sidaa darteed waxaan door biday inaan kaga dego hogaaminta dalka qaab ka duwan sidii ay madaxweynayaashii hore ee Soomaaliland kaga tagi jireen si aan ugu noqdo kuwa dambe tusaale ku dayasho fiican leh si aan u dhammaystiro dhintada iyo dhaxalgalka aan muddada dheer u soo dhisanayay waxaan door biday inaan wax damaca ku yeelan doorashooyinka soo socda isla markaana aan noqdo oday guud oo dhex u ah guud ahaan xisbiyada qaranka gaar ahaan xisbiga kulmiye tarka ka dhex socda waxqabadka xukuumadda iyo barnaamijka xisbiga kulmiye mudanayaal iyo marwooyin shaki kuma jiro oo laga wada dheragsan yahay muddada ay xukuumaddan xilkaysay wax weyn ka qabatay horumarka iyo dhismaha dalka isbeddelkan wuxuu ka tarjumayaa ballanqaadkii xisbiga kulmiye bulshada u ballanqaaday xilligii ololihii doorashada xukuumaddani waxay boqolkiiba 120 kordhisay mushaharka shaqaalaha dawladda oo dhan laba waxay kobcisay 5 jibaar dakhliga dalka oo kor uga qaaday 740 milyan ilaa 251 milyan oo dollar saddex waxay suurtagelisay bixinta darajada ciidamada iyo daryeelkooda afar waxay suurtagelisay waxbarashada bilaashka ah shan waxay kor u qaaday oo tayeysay adeegyada caafimaadka lix waxay kor u qaaday siyaasadda arrimaha dibadda iyo xiriirka beesha caalamka toddoba waxay abuurtay sanduuqa horumarinta Soomaaliland SDF sideed waxay daafurtay dunida ku baraarujisay khayraadka dabiiciga ah ee dalka sagaal waxay dhiirigelisay malqabsiga iyo aaminaadda beesha caalamka toban waxay suurtagelisay furashada ururada siyaasadda 11 waxay haweenka iyo dhalinyarada siisay fursadaha ay kaga qayb galaan maamulka dalka 12 waxay suurtagelisay dhismaha wadooyinka iyo madarada dalka 13 waxay suurtagelisay dhismaha iyo dayactirka xarumaha hay'adaha qaranka 14 waxay kaga dhabaysay lacag beddelka gobolada bariya dalka 15 waxay ku guuleysatay sugidda xuduudaha dalka 16 waxay dhiirigelisay nabadda iyo wada noolaanshaha gobolada bari ee dalka 17 waxay la timid daryeelka iyo xanaaninta danyarta iyo goobaha 18 waxay beesha caalamka si cad u tustay inaynu wax qabsan karno 19 waxaan wax ka qabatay biyo-gelinta gobolada dalka iyo ballaarinta mashruuca biyaha casbadda 20 waxay samaysay isla markaana dhaqan gelisay xeerar badan oo dalkan muhiim u ah 21 waxay kor u qaaday tayada warbaahinta qaranka waxayna samaysay idaacadda dalka oo dhan iyo kuwa quraanka oo gaara gabagabadii iyo dardaaran mudanayaal iyo marwooyin hadaf iyo himilo kasta aynu leenahay waxaynu ku gaari karnaa isku duubni midnimada wadajirku waa wax qura ee ummaddan ku meel marto sidaa darteed waxaa laga maarmaanaya inaynu midayno muruqeenna iyo maskaxdeenna isla markaana meel uga soo wareejisano ilaalinta nabadgelyada madax bannaanida iyo difaaca qarnimada Soomaaliland haddaba saynu xaqiijino waajibaadka ay naga saara qarankan waxaan idinku baaqayaa inaad gacmaha isqabsataan wixii khilaaf dhexdiinana yimaadana aad wada hadal ku dhamaysataan Soomaaliland ha guulaysato insha Allah ta'ala.